Suleeqo Xaashim Muxyidiin waa hooyo dhibana ah waxa ayna dhashay 6 caruura waxaana kaga dhacay madfac waxa ayna qaaday xanuunka maskaxda amaba loo yaqaano dhimirka. hooyo Suleeqo ayaa xilli duhura caruurteeda waxaa ku dhacay madfac xilli ay isugu soo xoomeen aqalkooda iyaga oo u fadhiyo qado sida naloo sheegay waxaana ka haray gabadha ka fadhido dhabarka dambeeto oo ah iyadana mid murugada walaalaheed la nool waxa ayna ahayd curadii qoyska. dhanka kaleeto caruurta ka geeriyootay hooyadaani ayaa ahay kuwo agoona oo ay ku soo koriday dhibaato fara badan inkastoo wax walbeeta ay yihiin qadar ilaahay haddana waxaa u sii dheeri ah dhibaato maanta haysato waana tan. kani waa hoyga ay ku nooshahay hooyo Suleeqo iyo gabadheeda Sucdi waana hooy aad u baaba'san. dhanka kaleeta markii gudaha loo sii galo hoygaani ayaad arkaysaa agabkii hurdada iyo maacuuntii oo isdhex yaallo waxaana isku qasay hooyada maadaama ay tahay ruux maskaxda looga jiro islana hadlayso. dhanka kaleeta hoygaani aad ayuu u dulduleelaa waana hooy rafaad iyo silac badan uu ka muuqdo. hooyadaani oo ah hooyo isla hadlayso ayaa darxumada korkeeda ka muuqato aan la eegi karinin waxaana ku soo dhaafayo ilmo fara badan. hooyadaani oo noola soo sheegay in ay tahay dhibane nolosha ay haysato ayaan go'aansannay in aan booqanno halka ay ku nooshahay waxa aan u tagnay qof iyadaba silacsan. xilliga aan u tegaynay wax dhara ma aysan wadanin balse gabadheeda ayaa u soo geliday xijaab madaxeedu waa uu xeernaay sida idinkaga muuqato kaamirada. hooyadaani oo ah ruux aan maskax qabinin oo isla hadlaysa iyada keliya uun ayaa naloo soo sheegay in ay tahay mid aad u murugo badan. dhanka kale mar aanu weydiinay Sucdi in ay hooyadeed u shaqayso ayaa waxay inoo sheegtay in aysan u shaqay karinin oo waxa ay ka baqanaysaa markii ay ka tagto in ay hooyadeed la kulanto dhib kaleeto maadaama ay tahay qof maskaxda la. waana tan Suleeqo oo aan mar waraysi yaro gaaban aanu weydiinay magaca ma Sucdi ka waran hooyo xaalkeeda ka waran waa sidii waa tasoo waa iska rafaadsan tahay waxa haysid wax waqtar iyo wax daawa iyo wax haba yaraat wax qabta ma laha waxa ay caawiyeen ma jiraan. ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsanaysaan telefoon number ma leedihiin sheeg numberka 9 haye 50 haye 73 haye 61 marka ku celi 9 50 73 إن شاء الله تعالى وحري الدم الصومالي يرجعون وجودنا فرينتان يوم قال كان بوي دامدون وأنا أركض دونان لما صح مسجد سكدي بحثيسن وحال كذا حال في حالي هاي نحن نقول الجهة إلهي إنه ما أعرف الأسود الجارين عاويان إلهي قفك عاوينه سجن إلهي وعاوينه قفك أنا عاوية سجن إلهي بعاوينه وأنكسر تجي السلام عليكم. haddaba walaalayaal aan caawinno hooyadan iyo gabadheeda oo la nool murugo adduunyo ayna u sii dheeri tahay duruuf nololeed. ballanteenu waa annagoo garab istaagno hooyadaani iyo gabadheeda ilaahay uma uusan weynin in uu wax siiyo carruurtoodana ugu dhaafo hase ahaatee waxaa lagu fiirinayaa waa annaga iyo adinka. fiiro gaar ah ha iloobin waxaa lagu jiraa bishii Shacbaan waana xilligii kala barka. dhanka kaleeto waxaa soo dhow bishii barakeysneed ee Ramadaan waana xilligii sadaqada iyo weliba dembi dhaafka. qof walbeeta ee islaama meel walbeeta ay joogaan qof walbeeta oo sadaqa la baxaya fadlan ha ka jeesanin maanta waxa aad haysataa jaanis ku muhiim ah iyo weliba sadaqo meeshii habbooneed oo ay ku bixi lahayd.